ka dhig Ramadaanka 2025 midka isbeddelka keena. Ramadaanka waa fursad qaali ah, ha luminin. Waa maxay go'aanka aad qaadan karto bisha Ramadaan? Qofkii si sax ah run ahaantii u qorsheeya Ramadaankiisa wuxuu suxi karaa sanadka intiisa kale ee hadhay. Haddaba, Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, ku soo dhowaada qayb cusub oo ka mid ah mawduuciinnii aan ku soo jeedin jirnay xaggan ee Go For Our Podcast. Maanta waxaan si run ahaantii si qoto dheer uga hadli doonaa mawduuc aad u muhiim ah oo run ahaantii sidee si wanaagsan loogu diyaar garoobi karaa oo loogu guulaysan karaa bisha Ramadaan, bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadkan aan ku jirno. Ramadaanku run ahaantii ma aha keliya bil soon, balse waa waqti isbeddel nafsi la keeni karo. Isbeddel naftaada ay keeni kartaa, anshaxaaga, akhlaaqdaada ayaad ku bedeli kartaa. Waa run ahaantii welibana waa xiriir run ahaantii qoto dheer oo la yeelan kartid Allah subxaanahu wa tacaala. Haddaba, nagu soo biir mawduuceena. Maxaa yeelay waxaa idinla wadaagi doonaa run ahaantii talooyin ka yimid dhammaan culimmadii waaweyneyd iyo Ramadaankii Nebiga sallallahu alayhi wasallam siduu u ahaa nabigeeni suubana sallallahu alayhi wasallam iyo culimmadii waaweyneyd sidee bisha Ramadaan ugu diyaar garoobi jireen, uga faa'iideysan jireen. Haddaba, qaybteena koowaad waxaan raacaynaa sunnaha Nebiga sallallahu alayhi wasallam. Ma ogey in Nebiga sallallahu alayhi wasallam uu qalbigiisa iyo naftiisa u diyaarin jiray Ramadaan bilo ka hor, oo run ahaantii wuxuu oran jiray ama ku ducaysan jiray Ilaahayow, Allow noo barakee bisha Rajab iyo Shabcaan oo na gaarsii Ramadaan. Waxaa soo wariyey waa Axmed. Haddaba, run ahaantii bisha Ramadaan ee barakeysani waa cashar qiimo leh, sababtoo ah bishani ma bilaabato maalinta ugu horeysa ee soonka, balse run ahaantii waxay bilaabantaa qalbiyaasheena ka hor intaynay bishu bilaabin ayay kusii jirtaaba, yaan isku sii diyaarinaaba. Hadda su'aal muhiima ayaa run ahaantii jirta. Tallaabada la taaban karo ee samayn karna maxay tahay baa jirta. Kow, niyadaada haddaba maanta laga bilaabo, niyadaada nadiifi oo u diyaar garow Ramadaan. Qaabil bisha Ramadaan si fiican soo qaabil. Tallaabada labaad ee la taaban karo waa samee qorshe run ahaantii nafsiyana, iimaana, imise run ahaantii imse jeer baad dhamin kartaa Qur'aanka, imse jeer baad macnihiisa aad la socon kartaa maalintii ama akhrin kartaa ama dhegeysan kartaa. Imise salaadood oo sunno ayaa run ahaantii tukan kartaa, sababtoo ah bisha barakeysan waa bil acmaasha la laabo. Haddaba, qaybteena labaad waxaan ka hadlaynaa dhaqanka iyo anshaxa iyo xakamaynta nafta ee bishan Ramadaan ay wadato. Nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu run ahaantii yidhi oo nagu tagay in soonku uusan keliya ahayn in run ahaantii laga soomo ama la iska daayo cuntada iyo cabitaanka, balse qofkii ka tegi waaya hadallada beenta ah, ficilka xun, hadallada xun, Allah run ahaantii subxaanahu wa tacaala uma baahna inuu ka tago ama uu iska daayo cuntadiisa iyo cabitaankiisaba. Haddaba, waxaan ka fahmi karnaa Ramadaanku waa run ahaantii xaqiiqiyan waxa weeye waa tababar adkaysiga, dulqaadka iyo xakamaynta naftaada mudane. Haddaba, maxay tahay tallaabooyinka la taaban karo ee samayn karno in ka laga fogaanay maxay yihiin? Kow waa 2 qodob. Ka fogow xanaaqa, sababtoo ah haddii uu qof run ahaantii kaa xanaajiyo, ku jawaab siduu Nebigu yidhi sallallahu alayhi wasallam, waan sooman yahay ka dheh. Haddii fal ama ficil aad run ahaantii badi oo samee falalka khayrka leh, run ahaantii sababtoo ah u dhoola cadda dadka kale, caawi qofka u baahan,
caawi kuwa dhibaatadu hayso. Intaa dhan run ahaantii waxaa ka faa'iidaysanaysaa bisha maadaama tahay bil barakaysan. Qodobkeena saddexaad waxa weeye deeqsinimada iyo waxa loo yaqaano iskaalmaynta. Dadku iskaalmaysanaya muhiimadda ay leedahay run ahaantii. Nebigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa ka ugu deeqsisa badan run ahaantii gaar ahaan bisha Ramadaan. Sababtoo waa bisha hamaasha laba laabo. Qofka ugu fiican waa ka dadka ugu fiican ugu faa'iido badan. Run ahaantii ugu fiican waa ka dadka ugu faa'iido badan run ahaantii. Haddaba waa in aan ka faa'iidaysanaa bisha Ramadaan si aan run ahaantii u kordhino sadaqada iyo caawinta dadka kaleba. Haddaba maxay tahay tallaabooyinka la taaban karo ee samayn karno? Kow, isku day bixi sadaqad maalin kastaba. Xitaa haba yaraatabe. Xitaa hadday yartabe isku dayna wax yar sii dad wax siisid. Maxaa yeelay Ramadaanka gudaheeda run ahaantii ajarka run ahaantii waa laba laabaa oo aad u badan ajir aad u badan yahay. Ta saddexaad haddaad kasi samee u diyaar inaan u samee qof qura nacamde u diyaar qof inaan afuusidid oo run ahaantii ka ajir fiican way fiican tahay. Ajirkiisana run ahaantii Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku siin insha Allah. Haddaba qaybteena afraad waxa weeye sidee bay culimmadii waaweyneyd ay uga faa'iideysan jireen bisha Ramadaan. Culimmadii waaweyneyd ee Islaamka waxay run ahaantii laga soo wariyey in Ramadaanku uu ahaa waqti run ahaantii qaaliya oo ay naftooda nadiifin jireen. Ibnu al-Qayyim waxa laga soo wariyey wuxuu oran jiray soonku waa tababar iimaanka ah. Wuxuuna run ahaantii uu yidhi jabiyaa rabitaanka naftaada isaga oo qalbiga run ahaantii ku soo dhoweynaya Allah subxaanahu wa ta'ala. Al-Ghazali oo ahaa culimmadii waaweyneyd wuxuu yidhi soonku dhabta ah ma aha keliya dhacanka haridda ama inaad iska daysid cuntada balse waa koridda wax loo yaqaano inaad run ahaantii qalbigaagu u soo jeesto xagga Alleh maadaama qofka uu gaajaysan yahay oo run ahaantii aad ayay u fiican tahay si fiican u soo jeesto. Haddaba waxaan isla fahanaynaa war run ahaantii waa fursad in run ahaantii ay mudan tahay aad ugu fiican tahay xiriirka Alleh run ahaantii laga faa'iideysto fikradda. Waxaan run ahaantii aad ka faa'iideysan karaysaa noloshaada iimaankaaga ayaa run ahaantii aad u kacay ayaad u qaadaysaa acmaashaadii ood badanaysaa. Hadda waxaan soo gaadhay gabagabadii mawduuceena maanta. Waxaan ku leeyahay ka faa'iideyso isku day bishani ka dhig bishan barakaysan ee Ramadaan 2025 midii isbedel keenaysay. Run ahaantii waxaan ku leeyahay aad ayaad uga faa'iideysan kartaa isku day dhammaan samee waxaan kuu sheegay waxaan ku leeyahay iyo